kadib gumaysigii dalalkii reer Yurub. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay iska kor qaaddo xorriyadda gumaystaha laga soo bilaabo sanadii 1960 ilaa 2024. Dalka waxaa soo maray madax iyo hogaamiyayaal kala duwan. Sidoo kale dalka waxa uu la kulmay marxalado iyo siyaasado kala duwan, sida inuu dalka mar uu noqday dalka dhex ifaya qaaradda Afrika iyo guud ahaanba adduunka. Waana markii uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre oo markaasi dalka gaarsiiyay halkii ugu sarreysay xilligaasi, iyo inuu dalka mar u gaaray marxaladdii ugu hooseysay. Waana kadib markii dowladdii Soomaaliya oo markaas xudun ahayd ay ka qayb gashay dagaalkii 1977 ee Ugadeeniya, waxaana siyaaday diimihii dibadda iyo adeegsiga qabiilka oo si xooggan ku socday markaasi, iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday ayaa dalka u horseeday inuu gaaro marxaladdaasi aad u hooseysa. Haddaba muuqaalkani kooban ayaa waxaynu ku soo qaadan doonnaa hadduu eebbaweyne idmo dhammaan madaxdii ama hogaamiyayaashii soo maray dalka, iyo sidoo kale anagoo si guud waxaan soo dulmari doonno taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo 1960 ilaa laga soo gaaro waqti xaadirkan. waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiira isku dulnool. Halkeenna wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo la joogo sanadda 1960 waana kadib gumaysigii dalalkii reer Yurub, waxaana markaas madaxweynihii ugu horeeyay noqday Aadan Cabdulle Cismaan. Weliba 1 Luulyo 1960 Aadan Cabdulle Cismaan wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne sanadkii 1908 ee Soomaaliya. Waxa uu waxbarashadiisa oo idil soo qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Aynu imaanno waqtigii uu xilka hayay Aadan Cabdulle Cismaan. waxa uu xilka hayay 1960 ilaa intii u dhaxaysay 10 Diseembar 1967. waxaana dalka 7 sano uu ku jiray xaalad soo kabsasho ah, maadaama uu sanado yar ka hor u qaatay madaxbannaanidiisa. Kadib markii ay dhammaatay 7 sano ayuu Aadan Cabdulle Cismaan xilka ugu degay si nabad ah, aan lahayn dagaal, oo markaasi Aadan Cabdulle Cismaan ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee xilka ugu dega si nabada. Kadib dalka waxaa ka dhacay doorasho, waxaana doorashadaasi ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii labaad ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ku dhashay magaalada Xarar Dheere 1919 ee Soomaaliya. waxa uu waxbarashadiisa uu soo dhameeyay sanadii 1936. intaas ka dambeeyayna wuxuu soo maray xaalado kala duwan, sida inuu mar uu noqday ganacsade, kadib shaqaale ka shaqeeya howlaha dowladda Talyaaniga ee maxkamiyadda. intaas ka dambeeyayna wuxuu waqtigiisa uu ku qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. aan u soo laabanno waqtigii uu xilka hayay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. asagana waxa uu xilka hayay 1967 ilaa 69. sidoo kale asagana xilligii dowladdiisii rayidka ahayd waxay la dhibaataysnayd adeegsiga qabiilka, laakiin waxay wax waliba ay sii adkaadeen. Oktoobar 15 markii maalin cad la dilay madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaarke, wuxuuna dalka u galay xaalad qalqal amni ah. kadib 7 maalin geeridii madaxweynaha Cabdirashiid Cali Sharmaarke ee ciidamadii xoogga ka faa'iideysanaya faaruq dalka ayaa waxay dhammaan ay gacanta ku dhigeen xarumihii dowladda, waxayna shaaciyeen in waqtigan laga bilaabo ay iyaga yihiin hoggaanka ugu sarreeya dalka. waxaana afgembigaasi hogaaminayay Aadan Maxamed Siyaad Barre. waxaynu dib ugu noqonno taariikhdii uu lahaa. taariikh uu dhashay Siyaad Barre si rasmi ah looma oga, waana la isku khilaafaa. isagoo yar ayuuna waayay waalidiintiisu, waxuuna la noolaa adeerkiisii Xirsi Barre ilaa asagana uu ka dhintay. mar kale ayuuna Siyaad Barre u waayay adeerkiisii. intaas ka dambeeyayna waxa uu ka soo tegay baadiyihii si uu uga mid noqdo iska lagu qorayay xerada tababarka ee Beledweyne. markii uu tababarka ugu dhammaaday waxaa la soo bedelay magaalada Muqdisho si uu u qaato tababar dheeri ah. intaas ka dambeeyayna Siyaad Barre waxa uu helay daacado kala duwan, sida inuu qaatay digtii ugu horeysay 1954 iyo sidoo kale sargaal ilaa 2 xidig loo dalacay sanadkii 1955. kadib markii la dhisay ciidanka xoogga dalka waxaa hogaamiye looga dhigay Jaale Maxamed Siyaad Barre, waana kadib markii uu geeriyooday janaalkii ka horeeyay ee Janaal Daawud Cabdullaahi Xirsi, waxaana loo soo dalacay Siyaad Barre darajada sarreeya guuto. bal aan u soo laabanno waqtigii uu xilka hayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. kadib markii ay dowladdii gacanka ay ku dhawaaqeen in iyaga ay yihiin hoggaanka ugu sarreeya dalka intii u dhaxaysay 1969 ilaa 76. Siyaad Barre waxa uu xilka ku hayay qaab afgembi ah ilaa laga soo gaaray 1 Luulyo 1976. ayuu noqday Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Soomaaliya. waxa uu hayay xilka ilaa 1991. haddii aynu fiirno waxyaabihii uu qabtay dalka sanadahaas uu xilka hayay, waxaa ka mid ahaa in horumar ballaaran lagu sameeyay caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha
iyo inuu dib u soo celiyey xiriiradii dibadda, wuxuuna dhisay hay-adda nabad sugidda iyo sidoo kale xikmad looga arrimiyo arrimaha bulshada, waxaana garsoorayaal looga dhigay kuwa ka mid ah madaxdii dowladdii kacaanka. Iyo sidoo kale waxa uu dhisay jaamacaddii ummadda, maxaa yeelay xilligaas waxbarashada ma gaarsiisnayn ilaa heer jaamacadeed. si taasi xal looga helo waxaa la furay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale dowladdii kacaanka waxay soo saartay nidaam iskaa wax u qabso ah oo lagu dhisay waddooyinka iyo dugsiyada. sidoo kale mid ugu muhiimsan ay qabteen dowladdii kacaanka waana ilaa maantada la iloobi karin ayaa ah qoristii farta Soomaaliga, waxaana la bilaabay ololo lagu doonayo qorista farta rasmiga ah ee Soomaaliya. si taasi loo helo waxaa la fasaxay dugsiyadii muddo sanad ah, waxaana tiro badan oo isugu jira macallimiin iyo arday loo kala diray daafaha dalka, gaar ahaan baadiyaha dalka. sidoo kale waxaa horumar lagu sameeyey ciidanka xoogga dalka oo aad loo qalbeeyey xilligaasi, waxayna sidoo kale ay la soo wareegtay Soomaaliya dhammaan gacan ku hayntii bangiyada. dib u kulahaas iyo horumaradaasi ballaaran ayaa Soomaaliya ka dhigtay inay gaarto heerkii ugu sarreysay xilligaasi, waxayna ka mid noqotay dalalka farakutiriska ah ee ugu sarreeya Afrika iyo guud ahaanba adduunka. bas markaani waxay u eg tahay inay soo dhammaadeen waqtiyadii qurxoonaa ee dowladdii kacaanka, waana halka ay dhibaatada ka bilaabanayso. waana kadib markii ciidanka xoogga dalka oo Urdun ahaa markaasi ay galeen dagaalkii 1977 ee Ugadeeniya. ciidanka xoogga ayaa si geesinimo leh ugu difaacay xabashada xuduudihii dalka iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo xiga sida inay siyaaday qiimihii dibadda iyo sidoo kale adeegsiga qabiilka oo qabiil kasta waxa uu samaystay jabhad u dagaalamaysa magaciisa oona muxlaafiyey magaaladii caasimadda. dowladdii kacaankana waxay u muuqatay mid sii dhacaysa oo aad moodidba inay daaleen shaqaalaheedii markii ay jabhadihii ay si toos ah ula wareegeen magaalada caasimadda. Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu magangelyo siyaasadeed u weydiistay dalka Nigeria. kadib taasi Cali Mahdi ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ah sanad 1991, laakiinse nasiib darro dowladdiisa ma shaqayn, waana kadib markii uu ka hor yimid Generaal Maxamed Faarax Keydiid intii u dhaxaysay 1995 ilaa 2000. dalka ma lahayn wax dowlad ah, waxaana dalka ku jiray xilligaasi ilaa la suukeeyay 22 Agoosto sanadii 2000 ayaa waxaa xilka dalka qabtay Cabdiqaasim Salaad, waxaana xilka hayay ilaa la gaaray 2004. kadib markii uu dhacay waqtigiisa waxaa imaatay dowlad federaal ah oo uu madax ka yahay Cabdullaahi Yuusuf, isagana waxa uu xilka hayay ilaa laga soo gaarayay 2008. 31 Janaayo 2009 waxaa xilka qabanayo Shariif Sheekh Axmed, isagana sida kuwii ku horeeyay waxa uu xilka haynayaa 4 sano. kadib dhicitaanka dowladdiisa waxaa imaanaysa dowlad jamhuuri ah oo uu ka talinayo Xasan Sheekh. 4 sano oo xilka hayayna kadib waxaa dalka lagu qabanayaa doorasho, waxaana doorashadaasi soo baxayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna sidaasi u noqonayaa madaxweynihii sagaalaad ee soo mara dalka, wuxuuna xilka haynayaa asagana ilaa laga soo gaaraya 2022. waxaana dalka mar kale ka dhacaya doorasho oo dhan yahay, waxaana mar kale nasiib u yeeshanaya oo dib ugu soo noqday xilka Xasan Sheekh, oona ilaa maantadani ah madaxweynaha ka arrimiya dalka. waxaana lagu ballansan yahay in doorashada xigta ay dhacdo sanadda 2026. waxaynu sugnaaba waa inaynu aragnaa madaxweynaha tobanaad ee soo mara dalka iyo wixii uu noo qabta asagana hadduu eeboweyne idmo.